sheekh badbaado go'aanka uu qaatay iyo jawaabta uu ka bixiyey aflagaadadii ay u geysatay Farxiyo Kabayare waxay noqotay mid cajiib ah oo si lama filaana uu uga hadlay. sidoo kale isla muuqaalkan waxaad kaga bogan doontaan hambaliyada arooska saaxiibkeen Kabtan Ayuub oo meherkii isaga iyo xaaskiisa maanta uu ka dhacay magaalada Garowe ee caasimadda gobolka Nugaal. haddii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkeena aad soo booqatay, waxaan kaa codsanayaa inaad ku soo biirto subscribe dheh, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtana ha naga ilaabin. mar kasta iyo meel kasta oo aad joogtana waxaan rajeynayaa in saaxiib dhow aad ka dhigan doonto channelkeena. sidaan wada ogsoonnahay, si xadka ka baxsan ayay u aflagaadaysay Farxiyo Kabayare maalin ka hor Sheekh Cabdullaahi Faaruq oo ah nin dhalinyaro ah oo ku nool dalka Kenya, ah YouTuber, ah nin Ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa bartay oo barnaamijyo diimeed sameeya oo baraha bulshada ku baahiya, laakiin si lama filaana uga hadlay dooda ka dhalatay Farxiyo Kabayare oo ladan gabar lagu magacaabo horay uga qayb qaadatay sadaqo loo aroorinayay gabadhaas oo xanuun sheegatay, isla markaana hadda la soo fariisatay in gabadhaas oo foundation furatay ama hay'ad samafal furatay cid dambe lacag aysan iska siinin, lacagii hore lagu qaraabanayay, dhibaato aysan haysan, iyada iyo wariyaashii iyo dadkii kale ee muuqaaladeeda sheergareynayay ay ahaayeen kuwo isku maxaan ku iraahdaa ahaa isku team isla qaraabanay sida iyada hadalka u dhigtay. iyada maadaama sadaqada dadka aroorinaya u istaagay gabadhaas ay ka mid ahayd, dad badanaa dood ka keenay, war adiga qofkan haddii aad sadaqa siisay maxaa ku daba dhigay? haddii ay ku tumato, haddii ay guryo ku dhisato, haddii ay ku caafimaado, haddii ay kusii xanuunsato, adigu waad sadaqaysatay. marka Sheekh Badbaado, Sheekh Cabdullaahi Faaruq oo loo yaqaano Sheekh Badbaado, wuxuu ka mid ahaa dadka sida weyn arrintan uga hadlay oo yiri war waxaan waad sadaqaysatay, Ilaahay agtiisa inay khayr ku jiro u badi, laakiin marnaba ha isku dayin sadaqadii shalay aad dhiibatay in maanta hadal aad ka keento. intii ay dhibsatay live ayay soo gashay, channelkiisa ayay dadka tustay, way aflagaadaysay, sixirro ayay ku tilmaamtay, wax walba oo afka uusan soo qaban karin ayay adeegsatay. Sheekh Badbaado saacado kadib uu soo hadlay, wuxuuna sheegay inuu aad iyo aad uga xun yahay aflagaadadii ay u geysatay gabadhan Soomaaliyeed ee fanaanada ah Farxiyo Kabayare, isagoo sheegay inuu u nasteexeeyo oo kaliya uu doonayay. sidoo kale wuxuu sheegay in Farxiyo Kabayare haddii ay gabadhaas wax ku haysato ay ahayd bulshada Soomaaliyeed inay usoo bandhigto ee dhahdo war waa kan waxaan ay samaysay lacagtii loogu talagalay in ay nafteeda ku kaafiso oo ay caafimaad ku raadsato, sidaan ay yeeshay. laakiin wuxuu yiri Farxiyo Kabayare markii aan muuqaaladeeda daawanay waxay leedahay gabadhaas Turki maysan aadin oo caafimaad uma aadin, Ilaahay meel kale ayuu caafimaadka ka siin karaa, iyadoon bixin ayuu Ilaahay caafimaad siin karaa, gudaha lagu dabaybi karaa, daawooyin kale ayay heli kartaa. Sheekh Badbaado marka hadalkiisa wuxuu ku daray in isaga inta badan xuquuqda dumarka uu difaaco, dumarka laga xaq daran yahay, dumarka la dhibaateeyo, kuwa caruurta lagu furay, kuwa jacaylka looga baxay, kuwa la bahdilo ayuu mar walba ka hadlaa. waana arkay anay muuqaaladiisa, waana la socdaa, inta badan wuxuu ka hadlaa arrintaasi isagoo si toos ah u sheega in dumarka in lagu xadgudbaa cid laga aqbalay aysan jirin, ciddii dumarka ku xadgudubtaana uu markaasi si toos ah isagu ula falgalayo, isagoo diinta islaamka usoo maraya iyo sida ay u karaamaysay guud ahaan dumarka iyo xuquuqdoodaba. sidaan ogsoonnahay, dumarka suuratul nisaa ayaa jirta oo qur-aanka kariimka qayb ka ah oo ka hadlaysa, suuratul rijaalna ma jirto oo ragga si gaar ahaaneed uga hadlaysa. dumarka xuquuq fara badan ayay siisay diinta islaamka, wax badanna way ka reebtay sidaas la mid ah, laakiin muusan ku aflagaadeynin Sheekh Badbaado shaqada ay hadda hayso gabadhan ee ah in fankii ay ku jirto, oo fankaan ogsoonnahay diinta islaamka inay xaaraantinimaysay, weliba muusiga way xaaraantinimaysay, kumuusan markaasi ataagin ama kuma weerarin. sidoo kale wuxuu yiri maanta haddii aniga aan ku dhaho heesta sidan ayaa loo laxameeyaa, sidan ayaa loo sameeyaa, oo aniga shaqadeyda aysan ahayn, soo dhibaato maaha, waa dhibaato. marka runtii waxay tahay marka runta meesha taala. Sheekh Badbaado wuxuu uga hadlay si aad iyo aad u wanaagsan, wuu caqli celiyay, quraan isa saar uu ku dhahay haddii channelkayga 2 maalmood aad ku xirnaatana
xasilooni ayaad dareemi doontaa uu yiri. Xasilooni ayaad dareemi doontaa. Ducooyin baa meeshaas laga bartaa. Suuradaha qaar iyo micnahooda ayuu ku sheegayaa. Adkaar badana meeshaas laga bartaa. Adkaartaasna waxay muhiim u tahay noloshaada markaad guriga ka baxayso, markaad seexanayso, marka culays uu ku haysto, marka muraad aad leedahay. Mar walbaba adkaarta muhiimad gaar ah ayay u leedahay qaybaha kala duwan ee bulshada caalamka, kuwada muslimiinta ah ee yaqiinsan jiritaanka Allah subxaanahu wa tacaala iyo nabigeena Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Marka Sheekh Badbaado maadaama si wanaagsan uu uga hadlay Farxiyo, waxaan rajeynayaa in muuqaalka sheekha haddii aragto wixii la xiriira gaf ee uu u geysatay inay raaligelin ka bixiso, in ay garnaqsato wixii dhibaato ku ah ay tiraahdo war walaalkayow aniga dhibkan iyo dhibkan ayaan kaa tirsanayay, sidan iyo sidan haddii aad ula jeedayna waa ii xadgudubtay, wixiina waa ay dhammaan karaan. In ay Farxiyo dib usoo laabatana waan rajeynayaa. Farxiyo runtii ani taageerayaasheeda ka mid ahay, laakiin kuma taageerin in Cabdullaahi Faaruq ama qof kale oo culamo ah ama qof aan culamo ahayn xitaa ay ku xadgudubto. Mana aha dadka dhacdhaca badan oo dadka ku xadgudba, laakiin bini'aadamku wuu qaldami karaa. In ay kasoo laabatana waan rajeynayaa. Markan waxaan eegaynaa hambaliyada arooska saaxiibkeen Kabtan Ayuub Axmed oo runtii xalfadooda meherka isaga iyo xaaskiisa Ifraaxsan Dheere maanta ay ka dhacday magaalada Garowe ee caasimadda ee gobolka Nugaal. Hambaliyo ayaan u diraynaa Kabtan Ayuub iyo xaaskiisa. Sawiradan quruxda badan waxaa laga soo qaaday lamaanayaasha iscalmaday oo aan leenahay guurkiina guur khayr, gurigiina guri nagay, guulow ka yeel. Dad badanaa hambaliyay oo u rajeeyay in Ilaahay subxaanahu wa tacaala gurigooda khayr uu uga dhigo, in Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigo kuwii isku barakooba, isku samra. Runtiina maanta wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed dhammaantood waxay u baahan yihiin in laga caawiyo dhisidda guryaha, in dhisidda guryaha laga caawiyo. Waxaa marka ay tahay muhiimadu in lacag aadan haysan, laakiin qalbi nadiif aad leedahay oo aad diyaar u tahay in reer aad yagleysho. Reerkuna samir ayuu u baahan yahay. Soomaaliduna waxay tiraahdaa qof ayuu guriga ku dhisan yahay, labada qof ee wada jooga ee lamaanaha ah. Mar walbaana waxaa wanaagsan in la isku diirsado, la isku xirnaado, midnimana la muujiyo. Hambaliyo 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 ayaan idin leenahay. Tiimkeena inagu xiran qaybta commentiga ayay dabcan hambaliyadiina idinkugu soo gudbin doonaan. Guud ahaan waa naga intaa tabinteena muuqaalkan. Haddii aad dhamaysatay waxaan kaa codsanayaa, haddii ay tahay markii ugu horreysay channelkan aad soo booqatay, subscribe dheh, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inagu reebto hanaga ilaabin. Mar kasta iyo meel kastoo aad joogtana waxaan kaaga mahadcelinayaa sida had iyo goorba aad ugu xiran tahay muuqaaladeena. Mahadsanidin.